ducadu nolosheen wax weyn ayay u tahay. Si ay natiijadu ay noogu imaato anaka, waxaan u baahannahay ducada inaan ku xirno dadaal, si tawakkalka aan Ilaahay u tala saaranayno oo u dhammaystirmado. Tawakkalku wuxuu ku dhisan yahay alla tala saarasho iyo dadaal joogto ah, iyo inaadan marnaba ka quusan naxariista Ilaahay. Duco kaliya ma ku filan tahay mise dadaal baa la rabaa? Tawakkalka dhabta ah waa sidee? Maanta mawduucan ayaanu kaga hadli doonaa. Markii qofka oo muslimka uu duceysanayo Ilaahay baryayo, ducadu waxay u baahan tahay dadaal ayay u baahan tahay. Marka koowaad inaad Ilaahay barisid, kadibna aad dadaalkaaga la timaadid. Si ay noloshaadu guul ay u gaarto, waxaad u baahan tahay labadaas oo wada jir ah, marnaba kalma maarmaan. Dadka qaar waxay isleeyihiin Ilaahay ayaan baryay, waxaan rabaa in ducadeeda laga aqbalo, balse marnaba kuma fikiraan inay dadaal sameeyaan si ay ducadiina ay ficilka marka la sameeyo ay ducadiina aqbalkeeda u imaado. Aqbalka iyo natiijada Allah subxaanahu wa tacaala ayaa iska leh. Laakiin anaga maxaana laga rabaa bini'aadamkeena? Haddaan nahay dad muslimiin ah, waxaana laga baahan yahay inaanu dadaalka koowaad aan la imaano, kadibna aan u dhaafno natiijada iyo Allah subxaanahu wa tacaala. Waxaa xaqiiq ah in nolosheenu ay isbedelayso markii aan isku darno labada ah, ducada iyo dadaalka. Tawakkulkan wuxuu noqonayaa mid guuleysta. Allah subxaanahu wa tacaala wuxuuna barayaa ducada in la raaciyo ficil. Laba qiso aad u muhiim ah oo Ilaahay Quraanka noogu sheegay, asigoo nagu barayo in dadaal aynu sameyno. Qisada koowaad, Maryama bint Cimraan, markii ay foolanaysay iyadoo kaligeed ah, meel cidla ah ay joogta, oo xaaladdu ay ku adag tahay, oo kaligeed ah, oo markii ay dhalaysay xanuunka foosha ay tamaninaysay in ay iska geeriyooto intii ay ku jiri lahayd xaaladan. Markii ay dhashay kadib, si energy iyo tabar ay u hesho, waxay u baahneed markay cunto inay hesho. Ilaahay ayaa wuxuu ku amray si ay cunto u hesho inay geed timir ah ee hoostiisa ay ku dhalaysay, inay jiridiisa ay luxdo si ay ugu soo daadato timir. Kadibna Ilaahay wuu awoodaa in uu timirta u soo daadiyo ayadoon xataa geedka saas u taaban. Laakiin Ilaahay wuxuuna barayaa in dadaalka koowaad iyo talaabada koowaad inaan qaadno in anakana laga rabo. Inta kalena Ilaahay ayaa timirtan u soo daadatay Maryama bint Cimraan. Waxay ina tusinaysaa xataa haddii xaaladaha ay kugu adag yihiin oo aad ducada iyo ficilka aad israacisiisid, guusha way ku imaanaysaa iyo natiijada aad rabtid. taasna cashar oo Ilaahayna baray weeyaan inaynu dadaal kala nimaano. Haddaad tiraahdid maanta Ilaahay baan iska baryaa meel fadhiisanayaa, waxaan sugayaa wixii aan cun lahaa. Waxaa leedahay haddaad dhahdid ka waran meel aan iska fadhiisanayaa, shaqo ayaan rabaa, inay Ilaahay iska baryaa kaliya oo aadan CV aadan diyaarsanin oo aadan shaqooyin raadinin. Waxaa loo baahan yahay si ay nolosheena isku bedesho inaynu israacsiino dadaalka iyo ducada, mana kala xiraan. Qisada labaad oo Ilaahay min al-Qur'aan uu barayo in dadaalka iyo ducada ay israacayso. Qisadii Nabi Ayuub alayhi salaam, xaaladiisii markaynu ka soo qaadano qisadiisa qaybta naga qusayso maanta mawduuceena. Nabi Ayuub waa xanuunsaday, jirkiisa ayaa caafimaadkii ka tagay, 18 sano ku dhawaad ayuu xanuunsanaa. Mar walba markii ugu dambeeyay Ilaahay wuxuu kaga baryay inuu caafimaad siiyo, Ilaahay naxariis badan inuu yahay. Inni masaniya durru wa anta arhamur raahimiin ayuu dhahay. Kadib Ilaahay ducadii wuu ka aqbalay. Ducadii markii laga aqbalay ayaa waxaa lagu amray inuu lugtiisa oo dhulka ku garaaco si ay uga soo baxaan biyahaas oo kadib uu ku qubaysto oo cabo si caafimaadkiisa dib u helo. Nabi Ayuub kadib dhulkii ayuu lugta ku dhuftay, biyihii ayaa dib Ilaahay ka keenay dhulka, biyahaas uu ku qubaystay, cabay. Muhiimadda waxaa halkaa qisadaas aan ku baranayno waxay tahay in dadaal iyo ficil marka koowaad na laga rabo, kadibna Ilaahay natiijada keenay. Nabi Ayuub asigoo xaaladiis adag tahay oo xanuunsanaya ayaa Ilaahay wuxuu ku leeyahay urkud birijlika, lugtaada ku garaac dhulka. micnaheedu waxayna tusinaysaa xataa adigoo xanuunsan waxaa loo baahan yahay in aad dadaalka la timaadid, ducada aad raacsiisid iyo alla bariga inaad raacsiisid dadaal. Haddaad xanuunsan tahay inaadan dhihin meel aan iska seexanaya, waa inaad Ilaahayna barisid, dadaalna alla timaadid. Marka tawakkulka waa dadaal iyo alla tala saarasho. Adiga dadaalka leedahay, Ilaahayna fulinta iyo inay arrimahaas hagaagaan ayuu leeyahay. Dad qaar ayaa waxay leeyihiin maanta waxaan u baahanahay awlaad, waxaana laga yaabaa inuusan weli guursanin. Dadka qaar waxaa laga yaabaa inay rabaan inay noloshooda isbedesho, mar walba ducada iyo alla bariga ay badiyaan, balse ay meel fadhiyaan. Muhiimadda
mowduucan wuxuu yahay ducada iyo dadaalka waa la israaciyaa si natiijadu ay kugu hagaag. Mowduucan haddaad wax ka fahanteen nala wadaag qodobada kale. Mowduucan haddaad ka heshay nagu soo biir miiraas. Muuqaalkan hadduu ku cajabiyana like saar muuqaalka. Mahadsanidin.